shirkada jaraa'id shirkiga jaraa'id wuxuu ku saabsan yahay saddex qodob oo yaryar baan rabaa inaan kaga hadlo marka koowaad baan salaamayaa ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa reer Puntland meel kasta ay joogaan qodobadaas waxa weeye qodobka koowaad waxa weeye waxa jiray bariyaha kan guux baa jiray dadku ay isla dhexmarayeen dadweynaha ay isla dhexmarayeen niman baa yimi nabad bay wadaan xalana waan ka hadlay radio gara waan ka hadlay waxaan rabaa markaa nimanka yimi inaan dadweynaha reer Puntland aan u iftiimiyo nimankaas waxay ahaayeen niman la yiraahdo ixtisaam oo wadaad ah way ahaayeen mana ahayn niman mar qabiila waxa isimaana kulli anigu waxaan hubaa waxa ku jiray hal isim kulli anigu inta la sheegay maan arag isim la yiraahdo Suudaan Maxamuud Guuleed baa ku jiray oo reer Burca ah nimankaasi halkan hadday yimaadeen barnaamijyo qabiyo ah oo aan runtii dadka reer Puntland iyo dadka ay la kulmeen u cuntamin bay la yimaadeen isma reer Puntland la kulmay ismadiina wixii ay ku yiraahdeen bay wax ka yiraahdeen nabad baan wadnaa bay ku yiraahdeen ismadiina waxay yiraahdeen nabadda aad ku baaqaysaan iyo nabadda aad wadaan xaggay taala ka haysta ciidamadiina iyo wiilashiina ka haysta dhulka marka nimankaasi adigu cala kulli xaal hadaladii ay la yimaadeen waxay ahaayeen wax qabiyo ah oo aan suurtagal ahayn oo aan dadka u cuntamin sidaas ay shalay ku tageen nimankaas ku amba baxeen ee dadka reer Puntland tariiqii aynu haysanay ee xoreynta dhulkeena ahayd ee inaga duwan arintaasi qodobkaas sidaa u laqa sidaa u qaata wax ka jirana ma jiraan qoliyaha wadaadada ah ee reer Puntland ama ixtisaamka wadaadada kalena ha ahaadeen waxaan leenahay dalka waxbaad ku leedihiin bari inaad xukuntaan baana laga yaabaa waxa loo baahan yahay wadaadow waxa aad ka hadlaysaan iyo waxa aad waxaynaysaan inay yihiin wax sar go'an oo waxaan ku raahday tifaftiran nabad ciidina ma diidana laakiin nabadda waxa la rabaa nabadda inay ka soo unkanto cid ay wax ka go'an inay ka soo unkantaa nabadda tukaraq dad baa ka qaxay falleeyay degeen garac lagu dhalbay degeen garow way degeen buro wadal bay degeen dhowr kun oo qoys baa ka qaxay oo nimankaas barakiciyeen waligii wadaad reer Puntland oo ka hadlaya ma arag oo halka dhulka dad baa jiifa oo maata oo barakacay oo loo gurmado waxa la yiraahdo dadweyne weynu u gurmanay qarxiisoba weynu u gurmanay beel kasta baar ka dhacan weynu u gurmanay weynu ku mahadsannahay kama xumin laakiin bal hoos u diga meelaha kale lafteeda bal hoos u digo dadkan iyo dalkiina waxaan leeyahay hoos u eega qodobkaas waa qodobka labaad waxa weeye odayga Cali Khalifa Maandhow laascanood ka hadlay oo shir ku qabtay oo yiri madaxweyne Khaatumaan ahay oo qolada jeegaanta ku laaday oo yiri waxba kama ogin oo muddadii way nagu dheereeyeen oo Puntland maagay oo odaygu waxaan leeyahay adeer odaygu waa dayoobay qofka haduu dayoobo waa fadhiistaaye ilaa inta waagu bariyay odayga hal la fadhiisiyaan leeyahay oo marka waagu bariyo oo qoraxdu soo baxdo tariiqo mar laha marka qofku raasada haduu dayoobo haduu qofku habeen guurayo uu dayoobo uu waa bariistaa meeshu marayo fadhiistaa odayga way ka jaarsatay waa ka xumaatay wixii lala galana waa laga baxay oo isagaaba cadeeyay mid kale hadaladiisu maantii horena tukaraq markuu yimi wuxuu yiri ciidamada qaranka Soomaaliland waa hambalyeynaya shalana wuxuu yiri waxba kama ogin waxba lagama weydiin marka dadka soo waafaqayaan dadweynaha oo taala ninka odayga ahayna waa kulli waanu dadka ka dhashay anigu waan ka naxayaa odayga weyn ee professorka ah ee Soomaaliyeed maxaan ku raahday sida loogu ciyaarayo anigu waxaan leeyahay odayga iska naso dadkaaga iyo dalkaaga u kaalay wixii aan wadnay xoreynta dalka aan wadna nagala qayb gal wixii hore socon waaye isku mid baynu nahay waxba lagaama leh waa lagu rabaa maxaan ku raahday waa lagu baahan yahay intii hore xoogaagu cidada ku dhamaaday adeerow wixii hadda ka dambeeyay dadkaaga iyo dalkaaga ugu shaqeeya isagana intaasaan leeyahay qodobka saddexaad aan ku soo gabagabeynaya waxa weeye dadweynaha reer Puntland meel kasta ha joogeen waliba gaar ahaan dadweynaha gobolada Sool iyo Cayn iyo Sanaag waxaan leeyahay ha caajisinina oo hadaalinina muqaawamadii waa inay bilaabataa dalkii waa la xoreynayaa xogaa waxaad moodaa inaad bustaqooyin gasheen kacdoonkii hal la wado
fadhiga ha laga kaco hoydii ka timi xaaladdu waxa weeye maanta guushii wax yar baa ka hadhay baraarugii waxaan dareemayaa xoogaa habacsanaana baraarugii iyo kacdoonkii iyo maxaan ku rahdaa isku xidhkii xoogaa inay shiiqeen waana laga yaabaa xagga ciidamada dowladda Puntland iyo xagga dowladda inaad idinka laftiina leedihiin waana lagu raagay waa la raagay laakiin shaqaa socota laakiin hadda wixii ka dambeeyay waa inaad istaan bay haataan